barnaamijkeena maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa 5 dabeecadood oo ay dadku moodaan ceeb balse calaamad u ah dadka maskaxda badan. maskax badnaantu waa sumad kamid ah sumadaha dabiiciga ah ee aadamaha oo ah waxa ay noolaha kale kaga suntan yihiin. haddii ay inta dabiiciga ah ee aadamaha hoos uga dhacdana waa calaamad tilmaamaysa caafimaad darro khatar ah. laakiin aadanaha dhexdiisu waa ku kala duwan yihiin heerka fariidnimo ama maskax badnaanta qof kasta ee uu Alle abuuray. sideedaba cilmi baaristan iyo kuwo la midka ahiba ma noqon karaan halbeeg rasmi ah oo lagu garto fariidnimada ama maskax badnaanta ilmaha iyo waxbarashadu in ay isku sidkan yihiin. sababaha waxa u horeeya madax adag. dadka maskaxda badan fikirkooda iyo aragtidoodu waa ay cad yihiin, ma qarsadaan mana aqbalaan tanaasul. arrintaasi waxay yaraantooda ku noqotaa ceeb iyo inay ku nacaan ehelka, asxaabta iyo guud ahaan dadka ku xeeran. laakiin ugu dambeynta waxay sabab u noqotaa inay horumar ballaadhan. qodobka labaad wuxuu noqonayaa gooni jooga oo ay jeclaadaan. dadka maskaxda badan waxaa lagu yaqaanaa inay jeclaadaan gooni u jooga iyo in ay waqtigooda ay gaarkooda u qaataan. su'aal badnaanta. inta badan dadku qofka su'aalaha badan waxay u arkaan inuu yahay qof fahamkiisu hooseeyo, laakiin waxay culimadan cilmi nafsigu caddeeyeen in su'aasha badani ay calaamad u tahay inuu qofku doonayo inuu arrinka uu si fiican u wada fahmo oo xogta uu isku xidhxidho kadibna fikir xoogan kala soo baxo. waana calaamad lagu garto ruuxa garaadka badan. xogta afraad waxay odhanaysaa xog sheegid badan. dadka maskaxda badan waxaa caado u ah in markasta ay xog iyo macluumaad cilmi ku dhisan sheegaan. weliba waxay xariif ku yihiin in ay sheekadooda ay ku dhex isticmaalaan xogta ay hayaan. qodobka u dambeeya waa xarakaadka badan. qofka maskaxda badan calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah inuu jir ahaan u xarakaad badan yahay. tusaale ahaan ma jecla inuu muddo dheer u meel kaliya fadhiyo, balse hadba meel ama dhan ayuu u guuraa. waxaa kaloo lagu garan karaa safar jacayl iyo in uu abuur ahaan ay u jecel yihiin xakamo la-aantu. adigu daawadow ama dhagaystow 5 qodob ma isku aragtay ama ma leedahay? se maxaad u aragtaa 5 qodob? fikirkaaga hoos noogu reeb. aad iyo aad baad mahadsantihiin.